qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada culimo udiinkiisa sidoo kale maamulka degmada ayaa ka qayb galay salaadan roob doonta aheed oo maamulka degmada Cadaado hore u cilaamiyay taa oo lagu tukaday maantay barxadda weyn ee madaxtooyada ee gudaha magaalada Cadaado muddo 3 maalmood oo culimo udiinkii qayb ka mid ah bulshada magaalada ay Soomaaliyeed waxa saakay lagu oogay salaadan gudaha madaxtooyada magaalada waxaana ka qayb galay dhammaan bulshada magaalada maamulkii culimo udiin kala duwan kuleel adag oo ka jira deegaanka iyo jidaalka oo daba dheeraaday ayaa bulshada alla waxay weydiisteen inay naxariistiisa ee raxmadda roobka alla u soo dedejiyo culimo udiinkii ka qayb galay salaadan iyo dhammaanba dadkii kale ayaa iscafiyay waxayna culimada sheegeen inay dhammaanba bulshada deegaanka ay ka fogaadaan waxyaabaha maanka duuriya taas oo halis ku ah bulshada nolosheeda saameynta ugu badanna ku yeelata dadka deegaanka iyo sidoo kale qaybo ka mid ah bulshadii kale ee ka qayb gashay salaadan roob doonta oo goobta ka hadlay يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا أيها المسلمون عباد الله إذا عرفتم وعلمتم أنكم مضطرون إلى رحمة ربكم وغيثه غاية الضرورة وأنه لا يكشف ضركم ولا يغيث شدتكم إلا الرحمن الرحيم الجواد الكريم فارفعوا قلوبكم وارفعوا أيديكم إلى ربكم مستغيثين به آملين لفضله راجين لكرمه وقدموا بين هذا الدعاء توبة نصوحا. الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحساننا وذهاب همومنا وقمومنا. اللهم اغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريعا صحا وجليل دبقا إلى يوم الحيج. اللهم إن البهائم والبلاد والعباد من الدنك والجوع ما لا نشكو إلا إليك. اللهم لا تهلكنا بالسنين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا وبما فعل السفهاء منا وآمنا في أوطاننا والأمورنا خيارنا. إلهي لوغما هذيو أرنتاس أيضا لأن محايا لي هذه نبينا صلوات ربي وسلامه عليه يدقن كيسي أيا سيدان marka roobku uu daaho oo dhibka iyo hawkarka iyo kulaylku uu yimaado nabiga salawaatu rabbi wa salaamuhu calayhi wa uu bixi jiray ummadiisii saxaabada allah subxaanahu wa tacaala ayay hor istaagi jireen rabbi ayay baryi jireen haddii uu roobku yimaado allahna siiyo waana ka rajaynaynaa wa falillaahi alxamdu walminna hadduu imaan waayo in la soo celceliyo oo roob doonta la soo celceliyo oo marna ilaahay baryihiisa aan laga quusan ayaa la rabaa oo la doonayaa insha allahu tacaala ilaahay roob khayr qaba hana siiyo haddii aan helno waan helnay haddii uu roobku dib dhacona ilaahay nagama dibdhige waan soo celceli doonaa salaatul istisqaa iyo roob doonta iyo ilaahay subxaanahu inaan weydiisano roob maxaa yeelay allah subxaanahu wuxuu leeyahay فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا نبي الله النوح الله أسقو كورمي وحيري نبي النوح وحيري ربي وأمدي وحان كؤري والربيين دنبي داف ويديستا إلهي وامد ذنوب تدافا روب عركا إذن كاكيني مقعيقو عبد الله عيسى علمي رمهانتي مانتي مقالة عدادو وحا آد وقب سنتي روب دون lagu bariyay in ilaahay roob nasiyo maadaama xilli jiilaal aan lagu jiro run ahaantii waxa isugu yimid bulshada qaybaheeda kala duwan maamulka degmada culimo udiinka run ahaantii ururada bulshada rayidka dadkaas dhammaan waxay muujinayeen in ilaahay baryaan roobna weydiistaan run ahaantii waxa lagu tukaday madaxtooyada magaalada Cadaado xarunta ganacsiga dowladda Galmudug waxaad moodaa inay qorraxdu hadda diiran tahay dadku si ay weyn ay ilaahay u baryeen waxaan leenahay ilaahay roob nasiyo gudoomiyaha degmada Cadaado Cabdullaahi Cabdiraxmaan Xuseen Tootole oo ka hadlayay afka maamulka oo ka hadlay goobta salaada lagu tukaday roob doonta ayaa uga mahad celiyay bulshada deegaanka sida uga soo qayb galeen alla bariga salaadan ahayd isla markaana maamulka degmada muddo 3 maalin ka horeysay oo cilaamiyay inay bulshada magaalada isugu soo baxaan salaad roob doona antay sidaad u jeediinba
dadku way isku soo baxeen waxayna iskugu soo baxeen salaadul istisqaa maadaama xilli abaara la joogo dhibaato fara badan ay taagan tahay deegaanka dhib badan ay ka jiro roobka xilligiisa aan hadda u jeedin laakiin aan aaminsanahay in ilaahay na siinayo oo rajada ilaahay aan markasta ka rajaynayno iyadoo haddana abaara haddana waxaa dib u soo laabtay ayaxii oo geedihii ayuu abaaru geedihii buu xaganayaa waa dhibaato kale waa musiibooyinka cusub ay ka mid tahay markaas maanta waa salaatul istisqaa la iskugu mid waana tukannay haddii roobka ilaahay na siiyana alxamdulilah hadduu nagu daahana waan ku celcelinaynaa insha allahu sidaas ayaan isku ognahay barnaamijka hadda dalka dhibay waa khamrada iyo taamowga iyo xashiishka dadka uu dhibaatada ku hayana waxaa ugu badan dadka da'yarta ah oo ama iskuulaadka dhigta ama dugsida dhigta ayaa ugu badan rag iyo dumarba barnaamijkaasi fidnu ku hayaa waxaan rabnaa marka in laga digtoonaado annaga ka maamul ahaan wixii aan ka qaban karna waan ka qabanaynaa jihaad aan kula jirnaa qof kastoo dadka ka mid inuu cunugiisa ka ilaashado macallin walba inuu iskuulka ka ilaasho in dugsida laga ilaasho waan rabnaa intaas aan ku baraarujinaa waxaa jira kuleyl aad u daran iyo jidaalka oo daba dheeraaday taas oo dadka saamayn ku yeelatay waxaana sidoo kale soo dhow bishii barakaysneed ee Ramadaan oo muddo kooban oo maalmo ay naga xigaan bulshada ku tukatay halkan salaada roobdoonta ayaana alle ka baryay inuu raxmadiisa ugu deeqo mahad nuur axmed warbaahinta dalsan magaalada Cadaado فأرسل السماء علينا مدرارا اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا